بسم الله السلام عليكم waxaa runtii wax aad loola yaabo ah oo musiibo la dhihi karaa waxa weeyaan in muwaadin Soomaaliyeed inta la dilo si arxan daraa loo dilo dowladda ajnabiga disho duqayn lagu dilo in aan dowladda federaalka ka hadlin maamul goboleedkii uu ka tirsanaa oo muwaadinkiisa ahaa uusan ka hadlin bal dowladda ajnabiga inay qoraal ka soo saarto tiraahdo nin al-shabaab la ganacsanayay ayaan dilay arrintan waa arrin khatar ah oo xuquuqda iyo dhiigga iyo nafta muwaadinka Soomaaliyeed khatar ku ah weeyaan muwaadinkan Soomaaliyeed وهانين عاقلة الله سبحانه وتعالى هون حرسته ولا دلي هذانا ولا إيدي أوكي سؤال شو جوهر سلس وديني وحوي أمريكا هدي أيضاً لو إيدي عاقلك حالو قموا واي قلب بوتشوجي لبها بين كور بوساس وتشوجي ولي بوحال شيء يا إنه دني الدولة ده ولا كل مي أو شر لنا هدي ترتو مرك عريمهن حالو قموا واي حشر يقولوا هرجين واي محكمة لو جين واي أرنت حكته ما يعدي مها لجود لي عاقلك الله هون حرسته قفك دم واجيل كرا لكن وين عدين لو هلو وليلا تاية هلكا سوسمي أرنت حكته وحوين يا بحي حكته لوجود لي وأنا أقول هاي إن مريكنكا يو بوتلان يو دولة فدرالكو إني وضع شقيان يو دمان مالها كشقيان administration يو دولة فدرالكا بل قرالكا بلوغو شقي إني دولة فدرالكا وحكوغي دولة فدرالكا دي وحكوغي محال لولا جيدا يا وحكوغا بوتلان دولة فدرالكا كمي تاي أرنتن سؤال بدن باكو قدامن أرنت خطرته ماش كنت توحويان إن دولة أجنبية أنت إسكي مادان إن الشعب كصومالي إسكاللايان أو إسكالدقيان وايس بوتلان إلى هذا وقام صنتاي صدح مالين كدب حي وقام صنتاي واي دولة الفدرالك وقام صنتاي دولة الفدرالك أيا كم مسؤولة بتقبك يهوذا دلك الصوماليين بوتلان يدا لفت كيدو مسؤول بكتاي دتك أي ماركتي ديجان كذا يا حكونته وأنا أقنا إن ماركتي coordination وكلا شق كلا دحيو بوتلان ciidamada Mareykanka duqeymaha calmiskaad iyo calmadu ka geystaan nobody can deny waxa khasaba in ay war sax soo saarto maamul goboleedka Puntland iyo dawladda federaalka labadaba jawaab cad baa laga sugaya hadii kale arrintan waa arrin cid walba khatar ku noqon karta soo noqon doonta waa in laga wada xisaabtamo in muwaadinka Soomaaliyeed isagoo la qaban karo la maxkamadeyn karo ama dambi lagu helo ama yaan lagu heline in la iska dilo oo duqeyn arxan daraa la isaga geysto arrin khatar weeyaan diinta islaamku ma ogola in qofka bilaadanka dhiigisa la iska daadiyo xuquuqul insaanku ma ogola qawaaniinta caalamigana ma ogola arrintan waa arrin khatar weeyaan waxaan ku boorinayaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan in arrintan laga kaco oo la soo taabto meesha ugu dambaysa musiibada kale oo jirta waxa weeyaan muwaadinka dhiigiisa sida sharci darrada lagu banaystay in siyaasad laga dhex raadiyo oo la isku tuuro laamay Puntland baa ka dambeysay ma federaalka labadaba lug bay ku leeyihiin labadaba mas'uuliyad baa ka saaran labadaba waxa laga rabaa jawaab cad